intii towradu ay dhalatay ee xukunka aad la wareegteen ee shaqadaadu ay badatay ee mas'uuliyadda ku saaran ay badatay noloshaadii sidee bay isu bedeshay haddaan runlow noqdo jaalle waxaan oran karayaa shaqadu way igu korodhay waana igu badataan oran karaya markaan runlow noqdo oo waxaa dhici kartaa inaan hameenkiina seexanin marar badan maalintiina aan ku xiriiriyo ayaa dhici karta laakiin haddana waxaan moodahayaa waxa aan u shaqaynhayaa wax qiimo weynay yihiin dadka Soomaaliyeed iyo noloshooda iyo xornimadoodii hore oo kacooda iyo wanaagooda inay tahay haddii noloshu ama dhib ha mudato ama yeenan mudanine mar haddaan hawshaas gobta ah randhiiska dambana u yeelanaya ilmaha Soomaaliyeed aan hayo dhibaatada isoo gaaraysa ma kasoo Mr President markaadan shaqaynaynin arrimaha aad ku madadaalato ee hawbiga ku ah maxaa kamid ah wallahi mar aan shaqaynin ma arkinba wax aan micno lahayn mooye markastaba shaqa waa taala intaan noolahay dadka naga inaan iyo dalka naga u shaqaynayaan jecel saasaana waqti badan u lahayn laakiin markii aan shaqada ku daalo si shaqada haddana aan xoog ugu sii yeelano meelaha aan aadaa waxa kamid ah xarunta dhexdeeda geedkan la yiraahdo big bombka aan ku madadaasho waxa kale oo kamid ah inaan volleyballka isagana aan askarta iyo ama dadka saaxiibada aan la ciyaaro haddii ay ii soo gashana haddaan faras helo waa jeclahay inaan eriyo cabaar Mr President waxaan jeclahay in aan ku weydiiyo shaqada aad qabato ta aad ugu jeceshahay runtii shaqada dalku ma kala leh mid la jecel mid gaar ah laakiin kullayba anigu waxaan ugu jeclahay marka aan hayo waxa durbadiiba teegaaraya ama wax u tarahaya dadka agoonta ah iyo dadka curyaanka oo Soomaalida dadka aad u liita markaasaan ugu jeclaa ama ninka aan shaqada haynin oo gaajaysan oo suuqa jooga marka aan wax la doonayo yaan ugu jeclaa sida runta shaqooyin kale aan ugu jeclaa waxa weeye kuwa dadku waagi hore Soomaalida ay ka faani jirtay Mr President tan iyo intii ay dhalatay towradu waa maxay arrimaha kugu waaweyn ee maanta aad isleedahay maydnaan qaban Charles aan hore kuugu sheegay annagu ma moodayno wax badan inaan qabanay maxaa wacay ninana de abaalba kaga rabnay ma jiro waajibna saaraabay ahayd noomana ay ogolaan karin wax weyn inaan qabanno dhaqaalaha dalku nooma ogolaan karin iyo sabab badan oo kaleeto oo markii dal uu ku dhaqmaayo hore isugu dhaqmi jiray nidaam aan maslaxadiisa haynin laakiin waxaanu isleenahay marba kulli wixii idin soo gaara suga waxaanan qabnaa waxa Soomaaliya u baahan tahay wax far badan inay yihiin oo in la qabtaa xaq ay tahay dhaqaalaha wax badan bay u baahan tahay in laga qabto tacliinta wax badan bay u baahan tahay in laga qabto caafimaadka wax badan bay u baahan tahay in laga qabto xagga dhismada aadamanimada sharafkiisa iyo gobonimadiisa wax badan bay u baahan tahay in la qabto marka jaalle inta caruur Soomaaliyeed ay gaajo u dhimanayso ama qof Soomaaliyeed uu cudur u dhiman hayo sideeba aan marka ugu marayn karayna inaan wax qabanay balse anaga idin waxa weeye maalin walba meeshii aan qabanna waa inay meel sugan noqotaa ee wax dhalanteeda waa inay noqon waxaanu qaban karno inaan qabanno waxaanan qaban karinna inaanan u dhuuntaagin waqti aan munaasib ahayn anagoon gaarin waqtiga munaasibka mid walba inaan sugno ayay tahay taladanadu Mr President waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliya oo ku dhaqan dalalka dibadda oo markii ugu horeysay maanta codkaaga maqlaya fariinta aad dadka maanta gaarsiinaysaa waa maxay waxaan gaarsiinayaa ummad walba adduunka joogta taariikh bay leedahay dadka Soomaalida oo dibadda jooga waxaan gaarsiinayaa aan una dirayaa waxa weeye xornimada Soomaaliyeed markii ay isku bilowday inay baadi goobto u halganto dadka dibadda jooga qayb weyn bay ka qaateen waxay uga qaateen xoolahooda waxay uga qaateen codkooda waxay uga qaateen in ay istaageeraan isjeclaadaan ayaan darro waxa ahayd markii xornimadii la helay sidii maamulkuba halka uga xumaaday iyagana maamulku inuu ka xumaaday qofku wuxuu ku sharaf leeyahay dalkiisa haddii uusan dalkiisa aaminsanayn wax xushmadaynaya ma jiraan